tirada dadka barakacyaasha ah ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa lagu qiyaasaa in ay kor u dhaafeen 500 oo kun oo qof kuwaas oo deegaanadii ay ku noolaayeen uga soo hayaamay duruufo kala duwan oo dhinaca nolosha ah weli ma aysan helin daryeelkii ay u baahnayeen waxayna gurmad iyo taageero dhab ah ka sugayaan walaalahooda Soomaaliyeed qabowgaasna walaxaas u dhimi roobka xalaya daadkaas wax u dhimi yarka oo iska xanuunsan hadana biyana soo dhaxgalay mininkii waa iga dumi rafaad rasi habeenkii oo baryan maalintii oo qadeen had soorti markana go'day wax had ilmi dab aan u saaray malaan xalitaano ku barisi maalintan saano qaay hadda uu soo oyn digsigan kala giisan saar raashin aan raadiyaan dhay wax hadda aan haayo oo aan si karan maayo inta saddex bilood degan weedo degan janaale gurni weedo ka bargaan kan ta degan raashinka jamaa asbuucan lamantii oo link dhiibay asbuucan hadisa walan dhiibna maayno mashaarina in kariyay soor moordina in kariyay ha ku sudaan asbuucan ay soo ma gaadan wal may karin nolosha walaa meeshan iska magaalada iska aada dhaqo hadda dhaqooqay ma dhirbiyaashan xaafadaha liigu soo siiyay gabadhina amar Allah uu jirtay banaankaas ay ku jirtay ayadoo iska dhidhiilaysa iska jabtay waana la kaw hadda waa kawinta laakiin bukaankaas kaliya haas wax kale oo askan maadaama xilligan lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxa uu maamulka gobolka Banaadir daahfuray barnaamij loogu magac daray Taakulo oo loogu talagalay in bulshada Soomaaliyeed kaalin kaga qaadato gargaarka loo sameeyo dadka barakacyaasha ah sidoo kale maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya hay'adda samafalka shacabka ayaa balan qaaday in bisha barakeysan ee Ramadaan ay afurin doonaan in ka badan 15,000 oo danyar ah oo aan haysan wax ay afur ku sameystaan degmooyinka Muqdisho waxa ku nool qoysas badan oo danyar ah oo aan haysan waxa ay afur ku sameystaan kuwaas oo aan fursad u helin in ay ka mid noqdaan dadka afurinta loo sameeyay waxaana barnaamijka Taakulo ama isku tashi uu yahay mid uu maamul gobolka Banaadir ku doonayo in uu ku balaariyo mashruuca afurinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee caasimadda ku nool ee danyarta ah shukr إن هو مقادم الحمد والشكر إلها نسي مقام برق الحمد والشكر نعم كجرنا برق إن شاء الله كبدها الحمد والشكر إلها وهكذا نغساكب آمين نعم كجرنا الحمد والشكر بها وكبهني برق duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Ismaan injineerisu waxa uu balan qaaday in maamulka gobolka Banaadir uu xoog saari doono sidii dadka barakacyaasha ah ay u heli lahaayeen daryeelkii ay mudnaayeen isagoo bulshada Soomaaliyeed ka codsaday in aysan walaalahooda dhibaataysan ku halaynin gacan shisheeye ujeedaan dadka barakacyaasha waxay u baahan yihiin kaalmo cid uga baahan yihiin waa Soomaali ama ka maamul gobol hadaan nahay dadka barakacyaasha waxaan u aragnaa inay yihiin dad muhiim u ah gobolka dad loo baahan yahay in la taageero bulshada ay ka mid noqdaan xuquuqda qof kasta oo Soomaaliyeed uu leeyahay ay helaan anaga waxaan rabnaa qof kasta oo barakac inuu si sharaf iyo karaamo ku noolaado waxa dhamaaday waqtigii aan gacmaha u horsan lahayn dad ajaanib ah waxa la joogaa waqtigii la isku tashan lahaa gobolka Banaadirna wuxuu door hogaamineed inuu ka qaato diyaar u yahay dadkan barakacaasha waa Soomaali cid laga rabo inay u naxdaan waa Soomaali anaga maamul gobol hadaan nahayna waxaan awoodno oo sameeynaa hay'adda samafalka shacabka ayaa dhankeeda sheegtay in isku tashiga uu sababo in la helo isku filnaansho iyo inaan la isku haleynin gacmo shisheeye dadku inay isku tashtaan ee wax qabsan karaan sidaanay ku bilaabanaysaa hal hay'ad oo ajnabi ah oo wax lagu bixisa malahan waa xoolo Soomaaliyeed waxa la isku la tashtay sidaas oo kalena waxaan aaminsanahay inaan cuntadana isii karnay guriyahana aan dhisan karno horumarkana aan qabsan karno dadku hadday isku tashtaan arintan bilow aad Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho